Shirkada Dahabshiil Gurub ayaa waxa ay soo saartay adeeg cusub oo lagu magacaabo Safar Taxsi kaasi oo bulshada reer Muqdish u sahli doona in dhamaantood qofku marka uu u baahdo meesha uu rabo si toos ah loo geeyo. Warbixin arintaas la xiriirta Cabdishakuur Cabdullaahi Axmed Shaashaah ayaa ka warramay. inaad ka wacdo telefoonkaaga Samtel nambarka tirsigiisu yahay 3000 ama aad garaacdo xidig 3 eber 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 afar gees oo aad dooratid taxi ama bajaaj oo kaliya ayaa ka xigta helida gaadiid heegan ku ah oo ku dhiga halka aad Muqdisho ka rabto adiga oo weheshanaya adeega Safar Taxsi ee Dahabshiil Gurub kala duwan ee xafladda ka soo qayb gashay Abdirasaaq Maxamed Jaamac oo ah agaasimaha guud ee adeega Safar Taxsi kana hadlayay munaasabada daahfurka adeegan ayaa sharaxaad ka bixiyay ahmiyadda adeegan uu leeyahay. adeegani wuxuu maanta ka bilaabmaya Muqdisho hadii aan la idmo. adeegani waa adeeg in muddo laga soo shaqeynayay ka oo ku cusub wadamo badan. adeegan waxyaabaha laga helayo waxa kamid ah tagaasida insha Allah adeegyo kale inta ka badanna way iman doonaan hadii aan la idmo. adeegan waxa loo dalbanayaa laba qaybood oo kala duwan. qaybta koowaad waxa weeye iyadoo la isticmaalayo dalbashada gaaban ee xidig 3000 gees. qaybta labaadna waxa weeye qofku isagoo soo wacaya xafiiska horyaalka macaamiisha oo ka soo wacaya lambarka gaaban ee 3000. adeegani wuxuu ku shaqeynayaa waqtigan shirkadda Somtel. kolka qof walba sita shirkadda isgaarsiinta Somtel wuxuu maanta awood u leeyahay inuu adeegan dalbado. dhinaca macaamiisha waxyaabaha aan ugu talagalay waxa kamid ah in qofka macaamilka uu helo gaari nadiif ah amaankiisu fiican yahay tagaasida u shaqeynaysa shirkaddan Safar oo kuwa la hubiyay dhinaca amaanka iyo dhinaca akhlaaqda. maamulaha iskaashatooyinka gaadiidleyda Yusuf Abubakar Jimcaale ayaa ugu baaqay reer Muqdisho ka shaqaysiga adeega Safar Taxsi. marka ama macallin jaamacadeed ha noqdo ama taxi la ha noqdo ama qof iska ganacsada ha noqdo in laga shaqeysto barnaamijkan oo barnaamij furan oo yahay oo ku saamaxaya inaad waqtigaad nafaas leedahay aad ka faa'iideysato. dabcan annagu waxaan naqaanaa qofku markuu xoogaa yar oo haysto inuu ka faano shaqooyinka qaar laakiin adduunyada waxaas kama jiraan. hiba warsame oo ah madaxa suuqgeynta shirkadda Hayunda ayaa ka waramaysa faa'iidada adeega. marka waxaan rajaynaynaa dadku inay baahiyooyinkooda ku dabooli karaan Safar hadii Ilaahay raahdo oo Ilaahay u barakeeyo. annagu Hayunda ahaan waxaanu ka bilownay Hargeysa meel weyn oo macrada waan ku leenahay. waxaan nahay distributorska ugu horeeyay Soomaaliya ama Somaliland ama wadanada gobolada Soomaalidu degaan oo dhan kuwii ugu horeeyay ku yaala. macrad weyn baan ka furnay oo geerashkii leh oo spare parts kii leh oo gawaari cusub oo 0 mileage baan keenay. Abdirasaaq Xaaji Nuur oo ah gudoomiyaha Dahabshiil Gurub ee labada Shabeelle ayaa ugu baaqay bulshada Muqdisho ka faa'iideysiga barnaamijkan. waxa weeyaan shirkadda Somtel ayaa teknoolojiyadii ay u baahnayd Safar Taxsi inoo sameeyay. Safar Taxsi sida halkan ka muuqata waxa uu u baahan yahay waxyaalo fara badan sidoo bulshada Soomaaliyeed ugu adeego. waxyaalaha uu u baahan yahay haddaan xabad u taabto waxa kamid ah horta taxiga loo baahan yahay marka ugu horeysa. taxigan laftiisa ayaa loo baahan yahay si uu loo adeego. taxigiina Hyundai Motors oo Dahabshiil Group kamid ah ayaaba insha Allah inoo fududeyn doonta inay keenaan tagaasi cusub iyo tagaasi la isticmaalayba si bulshada Soomaaliyeed ee degan Muqdisho awoodooda marba qofkii intuu awoodayo hadduu taxi cusub iibsan karo uu taxi cusub qaato. haddii uu taxi la isticmaalay iibsan karana taxi maaragtay la isticmaalay u qaato. adeegan ayaa u sahlaya dadka Muqdisho inay helaan gaadiid kira ah oo ay ku tagi karaan halka ay Muqdisho ka doonayaan iyaga oo helaya socdaal istiraah iyo qiimo jaban leh. Cabdishakuur Shaashaah RTN Muqdisho.